السلام عليكم صاحبada ku xiran beedka Runugod Media waxaan halkaan maanta ku soo gudbinaynaa deegaanka Dumay ee taariikhda Dumay ee loo yahay iyo bilowga aas-aaskiisii hore iyo ma ka soo bilowday Dumay waa deegaan hoos yimaada degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna ka xigaa bari qoraxdu ma ka soo baxdo ayuu uga beegan yahay degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe Dumay waa deegaan dhaqaale ahaan ku tiirsan dadka guuraaga ah amba deexda jooga amba bad joogta ah dadkaasoo inta badan raashinkana ka gata maqaaradana keena sida ay sheegayaan odayaasha deegaanka oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiya Dumay iyo Dumay goobtii uu ka soo bilowday markii hore oo ahay deegaan oday kamid odayaasha deegaanka ayaana faahfaahin dheeraad ah naga siiyay Dumay ma ka soo bilowday wuxuuna yiri sidoo waa janalka beedka Runugod Media xarameen Dumay wax ka ogaan Dumay dowladda Dumay aqoonta u leedahay maxasan bilowgeeda looga sheegi kartaa iyo aasaaskii iyo waxyaalaha taariikh ku tahay bismillah horta ma santiin Runugod Media waa mahadsanyahay runtii waa wax loo baahan yahay la ogaado deegaanka haddii alla ku maayo iyo barashadiisa Dumay 1977 horta 84 sano ka hor ayaa wax ku bilaabatay ka hor dhiciisa meesha ka hor dhaca ay ku aadaysan oo ka Dumay hadda badan lagu diray saddex hajirto oo qorba oo weyn oo faftuleela oo la galo laga soo dhumiyo biyaha iyo hajirtina ahaanta la gasho la soo dhumiso banaanka keenayso ay hajirtay marka miladka dugsiga ay ku aadaysan shilanta oo ay quraacda waaweyn sidoo kale amalay iyo iska marata xarsano xaarkii goor wala xaarij ya soma iyo ninkala dhisay hajirtay waxaan filayaa siyaatankii iyo markii lagu dhawaaqay Runugod ciidda dowladda horta lagu dhawaaqay Runugod bogtida dowladda waa loo aqoonsaday ay u guureen 5 kamida ay xaq u markii guureen ay kuwii kalena way ka guureen meeshii ay waxay digmaadaba cirka xoolaha maanay ku soo faafayeen cirkani u dhaweyd ayna ka dalmeeri waxay ka bari digay hadda kala banaanka dhulka banaanka doyga ay digay meeshaas ay hajirtay horta waa ku faafto hadda beledwey waay waa tasaalkid waa mid hadda ilaa hore fadlo marka haddii aad shaqo dhaqaalaha ay macnaha wax ka soo galaan Dumay wuxuu ku nool yahay dadka deexda ka yimaado raashinkana ka gata haddii alla ku maayo raashinkana ka gata maqaartana keena oo ka gada Dumay sida caadiga ah gawaarida Dumay waa gawaari kooban oo degmada ka imaado Runugod ka imaado marka ganacsi ahaan maxaasay ka yimaadeen deexda dadka ka yimaado haddii xiliida ku tiirsan waxay aad u sii falantaa xilliga la soo dego balliga quraadkuna ay soo degaan balliga ay deegaanasha degaan deexdana laga soo gadoomo ay degmadu ay dowladda si weyn u shirantay oo canta marka uu intaas ka balliga aqoon badan waa laakiin hadda anigu intaas ayaan ka sheegi karaa waa ku mahadsantiin baad Runugod Media runtii dabka waraysi adiga qaadin oo aan inta ka aqaan marka Dumay waa deegaan aad u fidsan hadda laakiin Dumay male goobo waxbarasho hal dugsi ayaa ku yaal Dumay waxa yimaada inta badan 3 gawaari oo rarka keena baraashin keena oo ka yimaada degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe Dumay sida caadiga waxa marta waanba soo gala 3 rasto oo ah mid rastada marta beledka dhexdiisa ilaa cadday iyo misagaway iyo midda ka imaada ilowla gacab ee gawaaridu soo aado soona marta deegaanka weyn ee Goomaal ee beledka saaran Runugod deegaankan aan ka hadlaynay Dumay wuxuu dhaqaalahan ku tiirsan dadka xoolo dhaqatada ah oo xeebaha guura iyo badda diga Dumay wuxuu camireeyay xilliga soo gadoonka oo deexduna laga yimaado korna laga yimaado oo ribiga halkaas ayuu si weyn u caansan yahay beledka waxa ka caan ah amba dadka u caansan kamid ah Cabdulmantaan oo ah nin weyn oo ganacsata ah oo maqaayadii dukaan weyn ku leh oo ganacsata gooba ninka laga xusi karo waa ninkaas Dumay waxa ku yaala suuq wax lagu kala iibsado xoolaha inta badan lama keeno laakiin caanaha markii xooluhu kalimadeen ayuu caan ku yahay taariikhda Dumay anigu intaas ayaan ka diyaarinay hadaan ahna bahda Runugod Media u baahanaa dad wali si xeel dheer oo aqoon si dadkaas waxaan ka codsanay si noola soo xiriiraan san deegaanada dhammaan
uga diyaarin warbixin dheeraad ah. Mahadsanidin saaxiibada ku xiran beedka. Saaxiib beedkan follow dhe oo share garay gaarsii ilaa 1 bilyan oo follow. Mahadsanidin.